Taliska biliiska qaybta gobolka Puntland ayaa ku guuleystay inay gacanta ku dhigaan xukunsane Cabdiqani Saleebaan Jaamac Saylor. Qabashada xukunsanahan ayaa waxaa gacan weyn ka geystay ciidamada macawisleyda iyo dadka shacabka ee deegaanada Wisir iyo Bacadweyn ayaa la yiri. Xukumanahan ayaa ka tirsanaa shabakad dad badan ku dishay gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. Cabdiqani Saleebaan Jaamac Saylor ayaa horay waxaa xukun dil toogasho ah ku riday garsoorka Puntland, waxaana muddo kadib uu ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Gaalkacyo, kaas oo lagu hayay inta looga fulinayay xukunkii lagu riday. Taliska qaybta Mudug iyo guud ahaanba laamaha ammaanka Puntland oo baadigoobayay xukunsanahan isla markaana madaxiisa lacag la dul saaray ayaa ugu dambeyntii lagu qabtay deegaanka Bacadweyn ee gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Galmudug.